aad baan salaamaya saaxiibayaal meel kasta joogtaan halkan waa rashka True Love saaxiibada iminka muuqaalkan daawanaya waxaan idin leeyahay waxaan idin soo gudbinayaa xog ku saabsan Soomaaliya iyo waliba leeyacato kala tagooda run ahaantii dadka qaar waxay leeyihiin Soomaaliya iyo waliba leeyacato way kala tageen dadka qaarna waxay leeyihiin ma kala tagin oo leeyacato dabcan familkiisa ayaa waxa ay dhaheen in markaas laga hakiyo arimaha baraha bulshada dhanka nolosha soo marka arimahaasi aynu eegi doonaa saaxiibada waxa ay leeyahay muuqaalkan ku soo dhawaada waxaan idinka codsanayaa channelkana rashka True Love subscribe noo saartaan dhiirigelinayay noo tahay saaxiibada waxaan idin soo gudbin doonaa arimaha ku saabsan lamaanaha iyo waliba arimaha dabcan dhanka baraha bulshada waxaan idinka codsanayaa in muuqaalkan aad sii shargareysaan oo diyaar garooba muuqaalkan oo dhameystiran wayahay saaxiibayaal meel kasta joogtaan aad baan markale idin salaamayaa run ahaantii maalmihii ugu dambeeyay inkastoo baraha bulshada aan la hadalhaynin laakiin dadka qaar waxay aaminsan yihiin boqolkiiba 90 inay kala tageen Soomaaliya iyo waliba leeyacato run ahaantii arintan ayaa ah mid markaasi dadka ay ka qoosteen oo badi waxay moodeen inay kala tageen oo kala yadhoobeen laakiin dabcan baaris aynu sameynay ayaa waxaanu ku ogaanay in ay wali isqabaan oo aysan kala tagin waxaana jira arin dhanka qoyska ah hadii ay timaadana run ahaantii wax kasta waxay noqonayaan meeshooda ay ku laabanayaan leeyacato iyo telefoonka laga soo wacay marka arinta qoyska hadii timaado wax kasta way dhamaanayaan leeyacato qoyskiisa ayaa waxay yiraahdeen waa inaad hakisaa dabcan arimaha ku saabsan lamaanayaasha run ahaantii wuxuu aad iyo aad dabcan uga maseeray leeyacato saaxiibkiisii hore dabcan hadda ay kala irdhoobeen ama ay kala tageen ninka lagu magacaabo Muniraqa hadaad aragto muuqaaladiisa badi wuxuu sheegaa in xaaskiisa uusan soo dhigeenin baraha bulshada wuxuu yiri horey wuxuu u sheegay aniga xaaskayga ma soo dhigayo markastana hadii xaaskayga la arko waxaan ahay qof aad iyo aad u hinaas badan soo marka ma doonayo ayuu yiri in xaaskayga dabcan la soo dhigo muuqaaladeeda anigoo baranka ku sameynaya soo wax kasta dhici karayo ragga way kala masiir badan yihiin raggu way kala masiir badan yihiin dadka qaar ma masiir badno dadka qaarna masiirkooda ayaa boqolkiiba boqol marka Munir wuxuu sheegay inuu aad u masiir badan yahay xataa ma doonayo qayb kamid ah xubnaheeda hadii ay noqon lahayd meel kasta oo cawradeeda kamid ah tintaba ha noqotee in uu markaas dabcan ka xanaaqayo hadii dad kale ay arkaan soo marka maalin kasto muuqaalada la soo dhigayo dhanka Munir waxa uu ahaa mid markaas xaaskiisa uu soo ogoleen laakiin arintan ayaa ah mid markaasi baraha bulshada ay qabsatay waxaana sidoo kale la sheegay in ay isqabaan wali aysan kala tagin dhanka kale iyadoo Soomaaliya dhanka TikTok boqolkiiba boqol ku badan tahay ayaa dhawaantan waxa ay sheegtay in markaasi ay tahay ninka kaliya adduunka ugu jeceshahay tahay xajigeedii waa leeyacato weeyaane waxay sheegtay inay ku qanacsan tahay ku faraxsan tahay laakiin markasto nolosha baraha bulshada ma aha mid gudaha hadii aad moodo in nolosha kaliya dhanka gudaha ay tahay yaa badan dhanka dadka isticmaala baraha bulshada iyo waliba dadka aan isticmaalin runtii baraha bulshada hadii u badato 5 sano 3 sano 4 sano ayaa la isticmaalaya lama oga dadka waxyaabaha u doogan soo marka maadaama la ogeen waxa ay markaasi labadooda iminkan ay ku qanacsan yihiin in arimaha nolosha baraha bulshada la soo gelin waxaana hubantiya in fikirkan oo ah in nolosha baraha bulshada saaxiibada loo soo bandhigo ay qaldan tahay fikirkan ayaa ah mid markaasi dabcan aad iyo aad u hufan run ahaantii fikirkan waxa siiyay ninka la yiraahdo leeyacato dhanka familiga waxay yiraahdeen in dabcan sujadiisa ama xaaskiisa dhanka baraha bulshada mar dambe aysan ka wada hadlin wayna wanaagsan tahay hadii dabcan saaxiibada ay ogaan jireen in baraha bulshada kaliya dabcan ay tahay nolosha hadaba waxaan u sheegayaa nolosha kaliya ma dhanka baraha bulshada nolosha waxay tahay kaliya in markaasi si qarsoodi noqoto ninka ragana ma aha ninkii dabcan noloshiisa banaanka keena noloshaada marka aad banaanka aad keento waliba noloshaada marka aad gudaha dabcan aad ku haysato isku mid maaha waxaana haboon in noloshaada qaas ku ahaato way fiican tahay in lamaanahaaga dabcan si qurux badan saaxiibada aad waxyaabo muuqaal aad iyo aad u qurux badan soo bandhigtaan way iska qurux badan tahay laakiin waxa aan qurux badneen markasto dagaalkiina la ogaado la yiraahdo hebel way kala tagayaan way kala irdhoobayaan arimahaas ayaa xun mooyaane sida kale way iska wanaagsan tahay hadaad xas wanaagsan haysatana
inaad iska haysato aad iska ilaashato wax karo ma lahan. Laakiin dadka badi sida aan hore aan kugu sheegayba waxay aaminsan yihiin inay kala tageen oo kala yadhoobeen ay isqabin. Laakiin muuqaalkan ayaa waxaa idinku leeyahay labadooda maysan kala tagin oo ay isqabaan, kullay way isku qanacsan yihiin. Laakiin dabcan Liicato ayaa hore wuxuu u sheegay in dabcan muuqaalada foosha xun ay soo dhigayso dhanka baraha bulshada, gaar ahaan halka TikTok ay soo dhigayso iska dhaafto. inkastoo ay iska madax adag tahay Sumaya, laakiin reerkani waxaan u rajeynaynaa in markaasi reer dhisan ay noqdaan. Runtii Soomaali hadaynu nahay ku faraxsano guri dumay, laakiin waxa ku faraxsanahay guri markaasi dhisan. Saaxiibada muuqaalkan intan ayaa ku hakinayaan ku soo gabagabeynaya. Run ahaantii wax been ah ma jiraan, anaka ma doonino in dad isqabo aan dhahno way kala tageen, sidoo kale dad kala tageenna ma doonino inaan iraahno dabcan way isqabaan. soo marka arintan ayaa nagu kaliftay. Saaxiibada waxaan idin leeyahay meel kasta joogtaan aad baan idin salaamaya. Rashka True Love wuxuu diyaar u yahay in dabcan uu idin soo gudbiyo arrimaha ku saabsan baraha bulshada dhanka lamaanayaasha. Diyaar ayaan u nahay. Waxaan idin leenahay in channelkeena nagu dhiirigelisaan, in channelkeena subscribe noo saartaan, in aadna soo dhaweysaan. Soo dhaweyntu dabcan waxyaabaha ugu wanaagsan nolosha weeyaan. Hadda dabcan maanta aad na soo dhaweysaan qudheena waan idin soo dhaweyn doonaa. waxaad tihiin saaxiibadeena, waan idin jecelnahay. markastana waxaad u baahan tihiin ayaan diyaar u nahay inaan idin soo gudbino. kolley barnaamij waxaa jira dhanka lamaanayaasha, dabcan kolley barnaamijkaasi daily aan idinkugu soo gudbin doonaa. kolley saaxiibada waxaan idin leeyahay soo dhawaada. muuqaalkan hadduu idin soo gaaro dabcan sii share gareeya. waqti habboon iyo way qurux badan ayaan idin leeyahay. sida aad inoo jeceshihiin ayaan idinkana dabcan idin jecelnahay. soo marka saaxiibada nooli kulanti ayaan idin leeyahay soo dhawaada.